بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa kilibkan video gaaban inaan ku muujiyo dareenkeyga iyo sida aan ugu xumahay xariggii sharci darrada ahaa ee loo geystay xildhibaan xasan macalin yuusuf oo loo yaqaano xildhibaan xasan balaag waan cambaaraynayaa cambaareen idilkeed waxaan usoo jeedinayaa maamulka koonfur galbeed oo uu hogaamiyo hadeertaan madaxweyne cabdicasiis xariggii sharci darrada ahaa ee uu kula kacay xildhibaan xasan balaag waa ayaan darro waana nasiib xumo waana waxaan loo baahnayn xilligan casriga ah ee la joogo 2022 in loo xiro qof xildhibaan ah siyaasi ah rugcadaa ah oo muddo kasoo shaqeeya siyaasadda in fikirkiisa loo xiro waa ayaan darro waxaan dhihi lahaa cabdicasiis aan usoo jeedin lahaa muddo 24 sac gudaheeda xildhibaankaas siyaasigaas in xoriyadiisa la siiyo xildhibaan xasan balaag wuxuu ka mid yahay golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuuna xibin ahaan wuxuu kaalinta u haayo waa xog haaye waa nin rugcadaa ah qeyb weyn kasoo qaatay dib u dhiska koonfur galbeed waa nin oo muddo ku jira siyaasadda waxaan dhihi lahaa cabdicasiis ninkaas xoriyadiisa sii inaad ku xadgudubto xildhibaan xasan balaag waxay la micno tahay inaad redlinekii aad soo dhaaftay waxaan u aragnaa daadaansi aad u geysanayso siyaasiyiinta koonfur galbeed marka annagana waxay nala habboonaan samayn doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan halkan sidoo kale ugu baaqayaa golaha siyaasiyiinta koonfur galbeed ee isbedel doonka galabta in shir laisugu imaado oo aan kaga tashanayno ficilkan guracan ee cabdicasiis uu ku kacay ee uu ku xirxirayo siyaasiyiinta gaar ahaan hadda ninka uu xiran ee u afduuban xildhibaan xasan balaag si annagana tilaabadan qaadi lahaynay oo aan ugu jawaabi lahaynay aan isu gaarno marka galabta iyo shirkaas aan isugu imaano wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu